السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقاليقة اسكسو نقد ونكسن وولاشي المنطق إيوه مركلتو أصحابتي دقاليقة مركلتو إيوه رمضان كريم horta waxaan weydiinaa ramadaan kariim miya mise ramadaan mubaarak waaye commentiga igu soo reeba su-aashaas waa ku kala wareegaa because waxaa u malayn jiray aniga marka horete ciid mubaarak la dhihi jiray ramadaan kale la dhihi jiray ramadaan kariim la dhihi jiray laakiin hadda waxaan arkay iyadoo la dhahayo ramadaan mubaarak aniga kolleyba isku kariim iyo mubaarak farqi weyn saas uma dhexeyso laakiin haddana waxaa u malayn jiray ciid mubaarak ramadaan alkariim laakiin inay isku mid tahay in kaleeto aniga ma garanayo kolley dad iyo aqoon badanaa jooga asxaabtayda qaaliga ah maanta iyo sida horey nooga barateenba waa family carekii weli aan kusii socono ku gada jirnaa weli skin care iyo hair care waa noo dham waa noo bilaaba la'yahay weli family careka ku jiraa marka asxaabay dad badanaa waxay isoo weydiiyeen waxay dhaheen macnaha entertainmenti noocee ayaa rabtay in wadanka laga sameeyo suuq bal horta waa qalqaloocanaya baa istoosiye waxay dhaheen entertainment noocee rabtay wadanka in laga sameeyo run ahaantii entertainment horta waa qasab dadka waa dhalinyaro waxay rabaan waxay ku madadaaliyaan waagi horeta idaacadaha jiri jiray sida Horn Africa oo kaleeto STN iyo dadkii joogi jiray hadda dadkii waaye yaqaano entertainment ay sameey jireen waxay sameey jireen sheekooyin waxay sameey jireen filmaan xataa way jiri jireen manaha sida hadda qaabka loo shidaayo laakiin qaab ka duwan marka qaabab badanaa jiro wax loo sameeyo marka haddaan waxaan kaga taabto waxyaabaha aan rabo yani entertainment wala dhalinyarada dhan u baahan tahay wax entertainment gareeyaan yani wax oo macnaha ilaa dadkii moogtahay ayaantan aaladaha lagu waalan yahay macnaha qofka wuxuu rabaa wuxuu iska fiirsado marka waxyaabo badanaa jirto aad samayn kartid adigoo wax dambiya wax dhibaataa wax oo macnaha mamnuuc saa'id ah adoo samaynin ayaa jirto waxyaabo qaabab aad dadka ku entertainment yani qaab dadkii aad usoo bandhigi kartid ayaa jirto marka fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe taa naga ilaabin like iyo share tan hadda videoga dhiirigelina ii tahay adina free ku tahay waxba kaama nabeyso dabcan dhag ku sii marka asxaabay dad badan ayaa jiro oo Soomaaliya oo dadka entertainment u sameeya like hadda tusaale ahaan haddaan kasoo qaado asal xaajiyo waa aragteen runta aanta meel makuu sheegaya aniga 24 saacadood 3 saac ama 4 saac ka mid ah waa daawada entertainmentgiisa macnaha wuxuu igu yahayba shida shaax camal ii qabtaa maalintii haddaana daawan maalintii oo dhan waxaan raadiyaa waqti intaan shaqada boobsiiyo iskuulka ka imaado shaqada ka imaado ilmaha keento ilmaha seexsado waxaan isku dayaa maalintii haddaana fiirsan ugu yaraan 2 saac inaan fiirsado macnaha addicted-aan ku ahay waxaas waxa keena waxa waaye waa macnaha waa wax yani just entertainment bal ila daawada videogiisa fiidiyosha kamid ah macnaha ila daawada ma ahan wax kuma arkaysi dhibaataa adaaba xiisa u qabayso waa dadka entertainment ay sameeyaan dhalinyarada waa isku imaanayaan dad isku dhigdhagaaya ma arkaysid dad qaawan ma arkaysid yani dadkii wax u sameeyaan entertainment dhalinyaradii xataa waxay isku dayaan in entertainment ka soo qayb galaan qof dadkii wax isku dayaan yani inay wax cusub noo keenaan maalin ka horeysa wax cusub ay noo soo diiwaan geliyaan marka saas darteed marka entertainment fiican waay marka maxaa ku diiday marka asal xaajiyo entertainment loo soo gudbinayo sidaas camal loogu soo gudbay anaga ma rabno nin inaa isku dhagdhagaayo waa isqabnaa dhahayo ilaah kuma dara ma doonayno bal nala daawada videogan ama ada xitaa baxal ku jiray barab ku jirtay wadamaha tirisay lankawa tirisay maleeshii waxaas dhaleys dal hadaan leeyahay ama dhaleey ala baxal ku jiraa ya waa hore marwa qaar qof kale la jaalinayo sida kooko amal inuu sheego fiican yahay sababtoo ah aanu hadda waa maqnaa waa xabibna kooko ayaa qabatay inay waqti waa sugaayno inay waqti dhaado meeqa meel soo maray dib mala insha Allah wallahi indhaha xirno bismillahir rahmanir rahim وكعب شعب سنة أمير وكعب سنة وقت هذا البضن بشيء أنا هذا الكائن المهربي متأكين وياي وكذا وصوتا وتين مركا وحقلت بقى وجهه fiidiyooshiina dib ugu noqda asad xaji dib ugu noqo dhalinyarada imaanayso leeyakum dhalinyarada waa isturan yihiin wax isku dhagdhagaa ma arkaysid wax guriga isla seexanaya ma arkaysid yani wax uur baa la isku yeela dhahay ma arkaysid waxba wax la kala yani waa innocent entertainment waay maxaa sidaas inii diiday waa dal iyo dabad meelaha laga fiirsan male maantana awaadku ku guulaysata waa aragteen marka boqol entertainment hadda filmka musalsalka ani waa la socday haboon
run ahaantii ada ducaale iyo maamada magaceeda muxuu ahaa horta maamada magaceeda maamada xanaaqsana u bixiyaan maamada magaceeda ma garanaa maama bilana ma ahayn ma aqaan magaceeda waa iga maqan yahay bal ii soo sheega maamada iyo oda ducaale ma arkaysid ayagoo isku dhegdhagaay nin iyo naagay jilooyaan okay ma arkaysid markasta way xijaabantaa maasha allah ilaah kuma darnaada oo ducaale sidoo kale markasta waa kaas salaadiisu tukanaya ilaah kuma darnaada ilmihiisu tarbiyeynaya wuxuu usoo jeegaya odaga xaafadda waay ma arkaysid asagoo xataa sariirta jiifka ayagoo intay wada fadhiyaan oo ma arkaysid yani waxay diidayaan maadaama because anaga ayaga ku dayanayna waa hooyooyinkeen waa aabooyinkeen waay ayaga ku dayanayna markay wax xun loo soo gudbiyaan dadka aqliga u saaxiibka ma ahana dadka dad yar waxaa jira dhalinyaro yaroo soo koraysaa jirto dhalinyarada oda ducaale hadda beeb ku sheegaya ani oda ducaale waxa waaye maasha allah booska aabanimada aad uga baxsada kulley saa uwada oysen waa dareentay markuu booska ka baxay macnaa dhimashaha uma saadiya ilahay cimrigiisa ha dheereeyo laakiin markuu booska ka baxay dad badana ooy ani runa umaleyna maalintii kow oda ducaale waa dhintay wallahi markaan tiktoka tegay aan arkay inuu yahay filinka marka hore run inuu dhinta umaleynaya waa ka naxay aad oga naxay marka waxa waaye because waxa waaye aabanimo daacadnimo diintii ku salaysan tarbiyad ku salaysan yani waxayna tusaysaa wiilkii muxuu ka qaadan karaa oda ducaale wiilka wuxuu ku qaadan karaa inuu noqdo aabbo wanaagsan gurigiisa og ilmihiisa og diinta islaam ku tarbiyeeya dhaqanka ku tarbiyeeya yani akhlaaqda ku tarbiyeeya waxbarashada ku tarbiyeeya yani oday meel kasta ka dhisan marka wiilkii markuu arko you know qof role model inoo yihiin anaga dadka naga waaweynka role model inoo yihiin yani qofka hadduu wax sameeyana anaga role model ahaan u qaadanayna haddii wax kala wanaag sameeyaan wanaagana dadka waaweynka ka raacnaa xumaantana dadka waaweynka ka raacnaa so waxay noo soo gudbiyaan ayaa mar walba raacaynaa yani iyadoo layahay marka iyadoo layahay qof walba aqligu ku xisaabtamaya haddana waxaa jiro dad macnaha oda ducaale qof kastoo fiirsada wuxuu leeyahay you know what wallahi maasha allah oday fiican waaye يعني ويل كسو حكو تامايا oo ducaalo kale inuu noqdo booska aabanima aaba fiican inuu noqdo gurigiisa jecel inuu noqdo reerkiisa danay inuu noqdo wax walba ka dhisan meel walba ka dhisan okay aniga maamada maxaa ka qaadanaya maamada waxaa ka qaadanaya maasha allah halka kale mid oo kale iyo xoogaa kisto ay gabadha habboon ay riixayso ay leeyso reerkeeda lama yaqaan dabcan hooyo ka saas adi ma rabi leed gabadha la aqoon asalkeedii meel ka timaada la aqoon inuu wiilkaaga guursado ma rabi leed mase wiila la aqoon inuu gabadhaada guursado ma rabi leed xoogaa arintaas waa iska soo jireen waaye yani dhaqankii ka sheekeynaysa laakiin waa hooyo asturan ilaah kuma darnaade maxaan ka qaadan karaa waa maama asturan ilaah kuma darnaade hooyo fiican ilmaheeda og naxariisata gabadha markay soo korinaysa may abuse garaynin way soo qaaday ilaa yaraanteeda way jecleed macnaha filin ahaata laakiin maxay ka jilaysa you know what adduunka dadka fiicnaa kama dhammaanin you see may habboon ayada may dhalin way soo qaadatay ayadoo yaraa loo keenay saa'ida u jeclayd ilaa ay markii dambe arrintan guurka xoogaa tushuus ku dhalisay dee dabcan waalidaa la yahay laakiin waxaan ka qaadan karnaa inay qof fiican tahay daacad tahay ilaa kuma dar cadaalad ay tahay ayadii gabadh ismahaan iyo habboon isku si ay usoo korisay yani wixii waa filan laakiin anaga role model oo noo yahay macnaha maxaan ka qaadan karnaa marka waxaan ka wadaa bal daawo filinkan habboon hadda wax yar ka daawada odaga ducaale suu reerkiisa u maamulaayo yani cidii yani maasha allah u kala hagaayo wiilasha u kala hagaayo bal daawada wax yar waa kaas ahay aboonu sheegaa sababtu haboon u qariyay haddii meesha joogto أباني حرص وقرأ سنة زبير وقاين انتو قرشة كلا نودق إنه أنا قرقي سوق تكنا هذا ما واحد ربطها منك هذا استقاشين إنها قرقي سوق تكتان فيري وإذين جيدا أقلي عن ضيال هن معنا أقلي كلا إذنكم مجرو جمال قلبت هدي وحكس maxaa ka qaadan kartaa marka halka fiidiyooga soo daawateen wax xumaana ma uga jeedaa aaba mas-uula ilmihiisa hadday yar yihiin hadday weyn yihiin tilaabadoo daba socota maxaa yamaysay qaladkan ha sameynina aniga aabba aniga ii daaya saasaa la rabaa waxaan anaga noo soo gudbinaysiin waxaan u baahannahay inaan wax ka qaadano marka dadaa iisoo qoreen maxaa kaa gale arya waxbaa iga galeen ani waxaa iga gale waxaa waaye ma doonayo ilmahayga inay role model dadka ay ka dhiganayaan dad faasiqiina inay yihiin ma doonayo wax haddayse aniga wax iga galeen aniga waxaan ahay beri hooyada lagu dayan doono dadka bahalka ii sheeg oo jalaya entertainmentiga waa inay noqdaan hooyooyinka beri lagu dayan doono nimanka waxa noo soo jeedinaya waa inay noqdaan aabayaasha beri lagu dayan doono aniga hooyooyina iga horreeyay hooyooyinkaasaa ku dayday aabayaala idinka iga horreeyay aabayaasha ku daysanaysiin ilmaheena marka maxay waayeen ilmaheena anagayna ku daysanayaan marka haddaan anaga wax xun oo faasiqiin aan usoo jeedino oo wax xun aan entertainment aan u samayno ilmaheena role model ayay naga dhiganayaan kama dhadhacsii kartid marka waxaan
ilaah kuma dareeda waxaan hadda fiiriyaa waagii horeeto been buu ku sheegaya aniga markii oo 10 jirka imeelaas ahaa xijaabka in la xirto yani xijaabka qamaan kan qamaar waaye marka yani waa xijaabanahay laakiin macnaha xijaabka lagu talagalay oo la jiidayo xijaabka in la xirto waa asturnaan diinteenana way sheegtay macnaha xijaabka in la xirto waa wax fiican waaye waagii oo aan bahalka ii sheeg oo aan soo koraynay xijaabku wuu cusbaa dadka ayranoo ma aqaano xijaabka may aad uma soo caanbixi jireen xataa iskuullada markii xijaabka laga dhigo sida usaama oo kaleeto almaamuun oo kale xijaabada marka laga dhigo waxaa la jira oo iskuulkaas akhwaan waa la dhihi jiray intaa xasuusateen hadii kaleeto markaas xataa waxaa xasuusanaa gabdhaha markay xijaabka xirtaan oo indho shareerka niqaabka ay xirtaan waxaa la dhihi jiray akhwaan muslimiin arooskooda eeyaa la qala bal fiir akhwaan muslimiin akhwaan ma taqaana waa walaalo muslimiin maxaa waay walaalaha muslimiinta bal fiiri jaaifada loo geystaya akhwaan waa walaalo muslimiin waa muslimiin akhwaan muslimiin walaalaha muslimiinta arooskooda eeyaa la qalaa ma dadka walaalaha arooskooda eeyaa la qalaa bal fiiri ilaah baa kugu dharshay dadkii dhahaya arkaa anagana ka daba dhihi jirnay markaasaan burso jirnay naagtii indho shareer soo qaadatay niqaabka soo qaadatay waa caysan jirnay bal fiiri ilaah baa kugu dhashay si diinta nolol nacsiiyey okay annaga marka wadanka islaamka joognaa marka maalinka dambe waa fahmayna laakiin ilmaheena opportunity-ga anaga haysan ayaga ma haystaan wadan kale ku dhasheen wadan kale ku koreen wadan kale mentality kale haystaan dad waxay arkeen ilaah kuma darnaaday wax walba caadi ay tahay markay arkaan dadkeeni oo laakiin qaabkan wax u jiraya qaabka Europeanka ama Americanka ay wax u jiraya markay arkaan waxay leeyihiin you know what is normal marka aniga waxba igama gelin hadhiinana aniga hadees waxba iga gelin iyo ka galeen ani waxba iga galay waxaan ahay hooyada biri lagu dayan doono waa inaan markaan dadkayga wax u soo jeedinayo waa inaan markaan dadkayga wax u soo jeedinayo ay ahaadaan calashaan sorry hadal iga soo dhex gala telefoon iga soo gogo'ay dadka wax u soo jeedina waa inay ahaadaan dad biri igu intifaacaya marka waxba igama gelin qarracda inta iska daysiin aniga kaliya waxaan eri wixii diidaa ha diidaan inta aqliga u saaxiibka waxaan leeyahay markaad entertainmentka dadka u sameynaysaan min fadlan wax diinteennan aqbalayso dhaqankeennan aqbalayso ilmaheennan ay ku daya karaan role model noo noqon kara waa inay noo jilaan anigu taasaan eri haddaa dambi ku leeyahay waa igu sheegi kartiin comment qurux badan igula soo reebo la sheer garay asxaabtaada fikirkaaga kasoo dhiibo comment kasoo reebo marka waxaan jeclahay videoga inaad meel dheer gaarsiisiin waxaan ka hadlaya muhiimadana hadalka xun Soomaaliya idinkana meesha xun ha aadinina waxaa ka aadin meesha wanaaga ka aada waxa waaye aniga waxaan leeyahay kaliya war waxaan diinteenna ma qabto hadda waxaa arkay maya gabadha way isla soo korsadeen muhiimadda gabadha inay isla soo korsadeen ma ahan muhiimadda aan ka hadlaya waxa waaye marka hore walaalay ku jilaayeen gadaal waa isla soo korsadeen cunuga markaas xalaqadaas fiirsanaya oo gadaal ay ka soo koreen ma dhahayo isna kana say like that wada walaalaha is normal nin waa isla ka dul qaadi karaan okay maqalka kale waxa waaye meesha meeqa qalada ka buuxo say naag nin uura ugu leeyahay wacala ugu yeelanaysa oo gabar muslimiid oo Soomaaliyeed waxaas waa qalad diinteenana kuma fiicna sharciyana kuma fiicna kaliya aniga waxaan soo dhahay walaalayaalow waxaan noo jilaysiin anaga afaktiga noo yeelanaysa awlaadeena waxay ku dayadaan oo role model ay ka dhigtaan noo jila wambalaayada buqliga ee faqsiga aan noo wadiin naga dhaafa aniga intaasaan ku eri asxaabay hadda waa kaas waa shay hore kugu sheegay videoga asxaabtiina shamilkii la share gareeya subscribe ta naga hilmaamin adiga firiya ku tahay walaashaana dhiirigelin u tahay waxaan idin leeyahay رمضان مناق مدة كلت وحنا ربع شكوين كي فاميل كيرك إن أنقص الضرر قصوين آد عجيبية أو اللي من فاميل كيرة أنت رجع علينا قصوين أسو جدبيو كومنتيك ويقولوا وذلك كتير فكر كاجا كومنتيك يقول صقر السلام أنت فيديو الله من الدب أو كل مدان وحنا الله هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.